agoontii aabbayaashu isku dhinteen weeraradii xumaa waxaa ummadda Soomaaliyeed karaamo iyo sharaf u noqonaysa carruurtaas markay koraan iyo abaalka ay sheegan doonaan waxay la tahay inayna qabiil ku abaal sheegan doonin inayna dhihi doonin reer hebel baan ahay oo i koriyey inayna dhihi doonin jufadaasan ka soo jeedaa oo wax ii tartay waxaan qabaa haddaan dhalintan la sii dayn lahaa oo reerkooda lagu sii dayn lahaa qaarkood waxayna tusaayeen inayna tuseen oo maanta ayagoo cambaar leh ama injir gashay ama dhibaataysan ama jiran ay dhici lahayd agoonnimadu waa wax karaamo leh ilaahina waa karaameeyey nabiguna waa karaameeyey nabi maxamed baa agoon ahaa asagaa agoonnimo ku soo koray wixii ka soo dambeeyey oo dhan oo agoon ana asagay ku abtirsanahayaan marka waxaan rajaynayaa in laga warqabo dhalintan si xooggan looga warqabo oo marmar aan loo imaanayo mar kasta loo yimaado waxaan aada ugu mahadcelinayaa jenaraal mukhtaar oo fikirkii lagu aasaasay maalintii la furahayey ayaan ka soo qayb galay fikirkii lagu aasaasay ee lagu dhisay meeshan iska lahaa iyo raggii kaleo kala qayb galayba qofka markuu mas-uuliyad qabto ama wuxuu noqonay wuu qabtay waana tegey ama wuxuu noqoni wuu qabtay waxaanuna ka tegey jenaraal mukhtaar waxaa muuqatay in ay muuqato wuxuu ka tegey ayna socon doonto muddo badan inay socon doonto ayaa muuqata waxaan rajaynaynaa qof kastoo mas-uula mas-uuliyaddu qabto in uu ku fekero maxaad ka tegaysaa wax la barbaariyo oo la dhiso oo la xoojiyana waxaa ugu weyn dadka bini aadankana waxay ka bilowdaan yaraantaasay ka bilowdaan markay yar yihiinna way xasuusanahayaan wixii loo galay annaku markaan yarayn waxaan sugi jirnay ciidaha waxaa noo imaan jirtay haddaan xasuusto prime ministerkii cabdirasaaq xaaji xuseen xaaskiisa mulaaxa in la dhihi jiray ila tahay iyo caasho cilmi mataan oo madaxweynaha xaaskiisa ahayd yacni mar kastoo ciid ay tahay waxay noo keeni jireen buskudyo aranjaato markaas jirta aranjaato la dhihi jiray iyo waxyaabo badan marka waan sugi jirnay ciidda waan sugi jirnay inay labadaas marwa noo yimaadaan waxaan rajaynaynaa marka madaxdu in ayna ayagu bas tegin inay marwooyinkoodana u tagaan ilmaha agoonta ay marwooyinkooda u diraan ayagu waa mashquulsan yihiin markayna mashquulsanayn inay marwooyinka tagaan sababtu marwadu waxay noqonaysaa qof lagu daydo anigu mulaaxo iyo caasho cilmi mataan ma iloobi karo marnaba anu ma aqaano inay markaas isdhahayeen reerkaasu ka soo jeeda ubaxa anay ii dhiibi jireen anaa hadli jiray marka sababtay igu dhiibi jireen ma garanayo laakiin mar kasta ubaxa anaa siin jiray maaragtay marka ra-iisul wasaare meeshani waxaa lagu dhisahayaa dadka la dhisahayo waa dad waxaa la dhisahayaa mustaqbalkii waddankan baa la dhisahayaa madaxdii waddankaana la dhisahayaa waxaa la dhisahayaa dadkii waddankan hogaamin doona waxaa dhici doonta dhalinyartan hadda waan weydiinay intaan la qadaynayni maxaad rabtaa inaad noqotid mid wuxuu sheegtay boosku kugu haystaa oo prime minister baan rabaa buu dhahay midna waad arkaysaa xijaar buu ku haystoo janan baan rabaa buu dhahay hamigooda iyo himiladooda aad bay u sarraysaa marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay gaarsiiyo laakiin yoom min al ayaam waxaan maqli doonaa ayagoo faanahaya oo dhahaya anigu waxaan ku soo koray agoontii ciidanka booliiska ayaan ahaa anagu waa ku faannaa bashiir goobe ayaa orfana ahaa waxaa orfana cali madoobe oo jananka booliiska noqday anigaa ah cabdishakuurkii la dilay baa ah maxamed faarax baa ah rag badan dad badan baa ah generaalada pilotska soomaalida dadkii ugu horreeyay oo dhan orfanay ahaayeen orfanay ka soo wada baxeen marka waxaan rajaynaynaa in la quursan oo la yaraysan tilaabadan prime minister ad qaaday ma aha waa maalin gelinkeed weyn laakiin xaqiiqada taariikhda ay ku reebayso dhalintaas yaryarka ah taariikhda ay ku reebayso iyo sheekada ay ku reebi doonto ma malayn karaysa marka waxaan rajaynaynaa inaan ayadoo official laga dhigin marmarka qaarkood layska yimaado ayadoon loo socon jimcada in lagala soo qayb galo sabtida in lagala ayadoon layska socon loo sheegin inuu prime ministerka yimaado inuu madaxweynuhu yimaado inay wasiirada yimaadeen hal arrin baan idiin sheegaa mas-uuliyadda waxay leedahay formonka markaan ahaa xerada orfanaan dhiganahay 15 mayna waan lug baan ka imaan jiray lug baan ku tegi jiray qadada marka waa la kala boobi waa la dhammaysanay 15 may baan ka noqonay xeradii waxaan tagnay oo qadadii la dhammaystay qadab mad haysatay waan soo marka nin la dhaho boon dheere deganaa muxuu ahaa ninkii shalay kula socday muxuu ahaa generaal adiyo ugaaskii idin la socday omo
walaalkiis baa wasiirka noo qaabay wasiir ahaa marka wuxuuna ku jira meeshaan lasoo waan soo noqday xeradii baan ka soo noqday anoo cara ah oo caraysan qado waan waayay anoo caraysan baan soo noqday albaabkii birtaan garaacay marka waa waqti la harsanayo oo ku garaacay wardihii baa dhahay maxaa tahay markaasaan u sheegay wasiirka waxaan idhi orfanaan ahay orfanaan ka imid inaan la hadlaan rabaa uu soo baxa isagoo hoosunta qaba waxaan ku yidhi anuu orfanaan ahay saaka hal rooti hal koob shaahan kusoo quraacday quraac kale ma helin hadda waa noqday xeradii waa la boobay baan raashin baan rabnaa in raashinkeena meel la saaraan ku markaasuu dhahay bax waa kaa daba imaanay runtii anigu lug baan ku socdaa albaabka markaan kasii galay xerada orfan waa dekeday ka soo horjeedaa aan sii galahay moogii baabuurkiisii baa soo galay isagoo wata waa mas-uuliyad weyn wuxuu yeeray doctoorkii maxaa dhacay ardadan qaaraan iskool dhigan baa jira oo boobahaya wuxuu dhahay ardadan marka ha la tiriyo cuntadooda gaar ha loogu dhigo meel ha loogu dhigo waa mas-uuliyad weyn weligii ma iloobahay waan xasuusnaanayaa marka tilaabadan tilaabo wanaagsan weeye ardadan waan u hablayeynaynaa geeridu waa xaq waalidiintii waa dhinteen qof kastana wuu dhimanahayaa laakiin dal baad leedihiin iyo dad iyo qaran baad leedihiin idinka fakera idin korinahaya idin abaabin doona waxaana rajaynaynaa qaarkiin in ay noqdaan mas-uuliyiinta waddanka ugu sarraysa dhan kasta